Assalaamu calaykum. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay soo koobidda gorfaynta buugga Who Moved My Cheese yaa qaatay burcadkaygii. Dhiganaha yaa qaatay burcadkaygii oo Ingiriisi ku qornaa oo loo yaqaano Who Moved My Cheese kadibna loo rogay af Soomaali iyo luqado kala badanba. Waa buug yare aad u qiimo badan, xikmad badanna ku duugan tahay. Buuggani mowduuca ugu weyn ee uu ka hadlayo ayaa ah isbeddelka. Buuggu waa sheeko faneed afar jiilaa noloshooda iyo si uga falcelinayaan isbedelada noloshooda ku yimaada ka hadlaya. Iminkii haatanna haddii aynu u gudagalno sheekada. Beri hore waxaa jiray dhul aad u fog. Dhulkaas waxaa ku noolaa afar noole oo yaryar. Waxay raadin jireen burcad. Mar allaaliyo markay quutaanna waxay hayeen kuwo faraxsan. Laba waxay hayeen jiirar, waxaana lagu magacaabi jiray Sniff iyo Scary. Labada kalena waxay hayeen bini'aadam yaryar oo laaleeg jiirarka. laakiin waxay u ekaayeen una dhaqmi jireen sida bini'aadamka, waxaana lagu magacaabi jiray Hem iyo How. Maalin kasta jiirarka iyo bini'aadamkii yaryaraa waxay waqti ku qaadan jireen xeriyad luuq leh, iyagoo ka raadinaya burcad gooni u ah. Jiirarka Sniff iyo Scary waxa kaliya oo aynan lahayn maskax, laakiin waxay lahayn dareen fiican. Waxay raadin jireen oo jeclayn burcadka adag inay cunaan, sida jiirarku had iyo jeer sameeyaan. Laakiin Hem iyo How waxay isticmaali jireen maskaxdooda, taasi oo ay ka buuxday afkaaro, taas oo sabab u ahayd inay raadsadaan burcad aad u kala duwan. Waxayna rumaysnaayeen in haddii ay helaan burcad ay ka helayaan farxad iyo guul. Ugu dambeyn maalmaha ka mid ah wadada dhexdeeda waxay raadin jireen xarunta burcadka C. Mid kasta wuxuu helay burcad u khaas ah. Sniff iyo Scary waxay si joogto ah u kaceen subax kasta xilli hore. Waxay u ordi jireen xerada luuqluuqa leh, iyagoo maray jid isku mid ah. Markay yimaadaan xarunta, jiirarku waxay iska bixinayeen kaboodii orodka, kadibna waxay sulan jireen qoortooda. Hem iyo How iyaguse maalin kasta xilli dambe ay soo kici jireen. Waxay aadi jireen xarunta burcadka C oo ay aqoon u yeesheen halka uu burcadku yaalo iyo jidkii loo mar lahaaba. Waxay u maleeyeen in burcadku weligii xagga ooli doono. Waxay noqdeen kuwo farxad iyo reereyntu ka tanbadatay, maxaa yeelay waxay heleen burcad. Sidani waaba wareere, ayuu Hem yidhi. Halkan burcad nagu filan oo weligii aan naga dhammaanin ayaa yaalay. Waqtigaas kadib, Hem iyo How kalsoonidoodii waxay isku beddeshay isla weyni oo aad bay u xasileen una nafiseen. Xitaa maba dareemi jirinba waxa meesha ka dhacaya. Sniff iyo Scary maalmihii hore mabay ka dul kici jirinba burcadka oo way dul yururi jireen si ay u laastaan. Iminkase way urursan jireen, wayna xoxoqi jireen agagaarka xarunta burcadka C, iyagoo baadhay inuu isbeddel ku yimid meesha in kale. Subax ka mid ah subaxyada waxay yimaadeen xarunta burcadka C, waxayna arkeen inaanu burcadba meesha oolin. Mabay la yaabinba. Dhinaca jiirarka, ficilka iyo falcelintu way u fududaayeen. Xaaladda xarunta burcadka C ay isbeddeshay, sidaa awgeed waxay go'aansadeen inay isbeddelaan. Isla maalintaas in yar kadib, Hem iyo How waxay yimaadeen xarunta burcadka C, iyagoon wax taxaddar ah siinayn isbeddelka yar ee dhacayay maalin kasta. Waa maxay? Burcad ma yaallo? Hem ayaa ku dhawaaqay, dhawaaqiisii ayuu sii watay. Burcad ma yaallo? Burcad ma yaallo? Wuxuu u maleynayay haddii uu kor u dhawaaqo inuu qof u soo celinayo. Yaa qaatay burcadkaygii? Tani cadaalad ma aha. How ayaa madaxiisii ruxay, isagoo rumaysnayn waxa meesha ka dhacaya. Sniff iyo Scary si dhaqso ah ayay u dhaqaaqeen xagga ay Hem iyo How sii wateen labalabayntii. Habeenada ka mid ah ayuu How gidaarka ku qoray. Hadba sida uu rabitaanka burcadku muhiim kugu yahay ayaa aad ilaashani oo aad noqon mid ku mintida. Maalintii ku xigtay, Hem iyo How waxay ku noqdeen xarunta burcadka C, iyagoo rajeynaya inay si u helaan burcadkoodii. Waa maxay sababtiisan igu sameynayaan? How ayaa ku yidhi, war aaway kuwii xumaa ee Sniff iyo Scary. Maad u malaynaysaa inay ogyihiin waxaynan garanayn? Hem ayaa ugu jawaabay, maya niyow, iyagu waa jiirar caadi ah, kaliya waxay ka falceliyaan waxa dhacay. Annagu waxaan nahay bini'aadam yaryar, waxaan nahay kuwa sooc ah. Xilligaas Sniff iyo Scary waxay dhex cararayeen xerada luuqluuqa leh, waxayna kaliya ka fikirayeen helidda burcad cusub. Ugu dambeyntiina waxay tageen meel ka mid ah xerada oo weli aysan arkin hadda ka hor, xarunta burcadka N. Farxad ay la qayliyeen, waxay heleen waxay raadin jireen ilo burcad cusub oo aad u weyn. Isla waqtigaas, Hem iyo How waxay weli ku noqonayeen xarunta burcadka C, waxay noqdeen kuwo jahwareersan iyo ku cadhaysan. How wuxuu ku fikirayay sida ugu fiican ay ugu badheeri lahayn xerada luuqluuqa leh, kadibna ay u heli lahayn burcad cusub si burcadka u dhadhamiyo. How ayaa si kadiisa ugu dhawaaqay, aynu tagno niyow. Maya, Hem ayaa si dhaqsi ah ugu jawaab celiyay, anu halkan waan jecelahay, waa meel nafsi ah, waxaanan ogahay inay xeradaasi tahay meel khatar ah. How ayaa cabsidiisii ku soo laabatay, rajadiisii ahayd helidda burcad cusubna way yaraatay. Sidaas darteed maalin kasta Hem iyo How
waxay sii wadeen inay sameeyaan wixii ay hore u samayn jireen. Guryahoodii ayay ku noqon jireen iyagoo xambaarsan walbahaar iyo jahwareer. Haw wuxuu ogaaday inay luminayeen awooddoodii. Ugu dambeyntiina maalin Haw intuu naftiisii ku qoslay ayuu yidhi hem bal anigii fiiri, annagu waxaan sameynaa wax isku mid ah marar badan annagoo rabno inaan ogaano sababta xaaladuhu fiicnaan la'yihiin. Haddii aanay tani ahayn caqli xumo dee waa maaweelo uun. Markuu Hem arkay saaxiibkii oo gashanaya dharkiisii orodka ayuu ku yidhi oo imika ma kaa dhabayo ma waxaad tegaysaa xerada luqluuqa leh, maxaad xaggan aniga igula sugi lahday ilaa ay kasoo celinayaan burcadka? Sababtoo ah adigu ma helaysid burcadka, anu ma rabo inaan xaggan iska joogo. Waxaan xaqiiqsaday inaanay weligood dib u soo celin doonin burcadkii hore, taasina ahayd burcadkii shalay. Waa waqtigii aan raadsan lahayn burcad cusub. Hem ayaa ku dooday bal ka waran haddii aanad helinba burcad. Haw ayaa ku yidhi ma ogi, balse nolosha hore u socota annagana waxaa laga rabaa inaan la jaan qaadno hore u socono. Sida Hem oo kale qayb ka mid ah oo aad bay u walwalsanayd oo jahwareersanayd, sidaa darteed derbiga kasoo horjeeday ayuu ku qoray odhaah. Kadibna odhaahdii ayuu ku dheegagay in muddo ah. Odhaahdaasina waxay ahayd haddii aanad absanayn talo maxaad samayn lahayd adigu? Dabadeed waxa uu xoog u qaatay neef, wuxuuna u leexday dhinaca midig ee xerada luqluuqa leh. Si tartiib ah ayuu u rucleeyay ilaa uu ka gaadhay meel uunan garanaynin. Haw wuu murugooday markii hore sababtoo ah waqti badan ayuu ku sugayay burcadka xarunta burcadka C. Hadda Haw wuxuu xaqiiqsaday in isbeddelkaasi aanu ku noqon lahayn la yaab haddii uu la socon lahaa wixii dhacayay. Sidoo kale haddii uu isku diyaarin lahaa ama uu ka fikir lahaa isbeddelka. Wuu yar istaagay si uu u nasto kadibna wuxuu derbiga xerada luqluuqa leh ku qoray had iyo jeer burcadka wanaagsan waxaad ku garani urta, halkaana waxaad ku ogaan doontaa kan duugoobay. Haw wuxuu rajaynayay inaanay odhahyadan isaga keliya toon noqon xasuus, ee mar haddii uu saaxiibkii isku dayo inuu soo dhaaqo xerada luqluuqa leh isagana u noqdaan talooyin iyo jooyin uu raaco. Si kadis ayuu Haw u dareemay raaxo fara badan. Wuxuu isweydiiyey sababtee aan anigu dareemaya waxaan u wanaaga anigoon haysan burcad, sidoo kale aan ogeyn meel uu yaallo. Isla markiiba wuxuu ogaaday sababta uu u dareemayo wanaagga. Wuu istaagay wuxuuna derbiga mar kale ku qoray markaad cabsida iska daysid waxaad dareemi wanaag. Haw wuxuu sawiranayay isagoo ku dhex jira qayb burcad ah oo weyn oo dhex fadhiyana rasooyin dhammaan burcadkii uu jeclaa ah. Intaa dabadeed wuxuu isku yidhi sawirashada naftaada oo ku raaxaysanaysa burcad cusub waxay kuu hogaamin kartaa madasha dhabta ah ee uu yaallo burcadku. Ugu dambeyntii Haw wuxuu soo gaadhay xarun burcad oo aad u weyn. Si nasiib xumadiisii wuxuu ogaaday inay faaruq tahay meeshu. Wuxuu xaqiiqsaday inuu haddii xilli hore iman lahaa uu halkan ka heli lahaa burcad fiican. Muddo kadib Haw wuxuu dib ugu noqday xarunta burcadka C, wuxuuna u tegay Hem ayuu siiyey jab yar oo burcad ah, laakiin Hem wuu ku gacan seedhay. Wuxuuna ku yidhi anuu ma malaynayo inaan jeclaanayo burcad cusub. Anu waxaan doonayaa in burcadkii dib laygu soo celiyo. Anu ma doonayo inaan isbedelo ilaa aan anigu helo waxaan rabo. Haw madaxiisa ayuu luxay isagoo cagajiiday oo ka niyad jabsan saaxiibkii. Waddadiisii ayuuna dib isaga laabtay. Haw hadda wuxuu xaqiiqsaday in habfikirkiisa cusub ku dhiirigelinayo habdhaqan cusub. Wuxuuna derbiga ku qoray markaad beddeshid waxaad aaminsan tahay waxaad beddeli doontaa waxaad samaynaysid. Haw gobollo yaryar oo burcad ah ayuu ka helayay meelo kala duwan. Sidoo kale waxaa dhacday in Haw xooggiisa iyo kalsoonidiisiiba dib u soo kamaan. Haw waxa uu sii socday surintaasi isagoo ku cusbeed. Meel dhow ayaa uu ka helay burcadka cusub ee xarunta burcadka N. Marka uu dhex galay wuu naxay. Wuxuu arkay rasooyin burcad oo dhaadheer oo meel walba yaalay. Waxay ahayd ilo burcad oo cusub aan weliga arag. Muusan wargaranayn dhammaan waxa uu arkay maadaama qayb ka mid ah burcadkaasi isaga ku cusbaayeen. Dabadeed muddo yar ayuu isweydiiyey inay waxani dhab tahay ama malihiisa tahay, ilaa uu ka arkay saaxiibadiisii hore Sniff iyo Scary. Sniff iyo Scary ayaa gacmahoodii u haadiyey. Calooshooda yar ee buran ayuu ka gartay inay halkan in muddo ah joogeen. Haw si degdeg ah ayuu salaamay saaxiibadiis, isla markaana wuxuu dhadhamiyey gobollo yaryar oo ka mid ah burcadkii isagu jeclaa. Intaa dabadeed Haw wuxuu maqlay wuxuu u maleeyay inay tahay shanqadh socod. Markii shanqadhu badatay wuxuu xaqiiqsaday inuu qof soo socdo. Hem ayaa soo socda. Ma gobolada ayuu ka soo leexanayaa? Sheekadani waa mid cajiib ah, dad badanina ka faa'iideen. Muuqaalkan waxaan filayaa inaad ka faa'iiday. Haddii aad ilaa halkan soo gaadhay, qaybta faallada waxaad noogu reebtaa 4 jilaa ka dabeecadiisa leedahay. Wassalaamu calaykum.